xarafka F xarafkani waxa uu mar walba dareemaa in nolosha iyo badhaadhaheeda oo laga faa'iideysto ay tahay lagama maarmaan inkastoo muuqaalka duleed ay dadku u yaqaanaan inuu yahay qof aad u xasiloon haddana waxa ay runtu tahay inuu yahay qof aan lagu aqoon deganaan iyo caqli miisaaman waxa uu ku jiraa xaalad xasilooni darro dareen ammaanna astaan uma laha waa xarafaan lagu aqoon fulin balse caan ku ah inuu aragti iyo fikir cusub u curiyo nasiib darro waxaa dhacda inuu mararka qaarkood ku fashilmo inuu muujiyo waxa uu curiyey waa xaraf dhammaantii mas'uulnimo ah waxaanu leeyahay aragti mawaaqif cad oo aanu la gaban waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay qof jecel saaxiibtinimada kuna buuriya dadka kale xarafka J ama J xarafkan waxa uu astaan ah karti badan oo jidheed iyo mid caqliyeedba marka ay khayr noqoto waxa lagu arkaa inuu khayrkii uga dheereeyo laakiin nasiib darro kartidaas ku abuuran inta badan ugama faa'iideysto sida habboon ee khayrku ku jiro waxa uu leeyahay dareen jacayl waxaanu aaminsan yahay jacaylka iyo xidhiidhka kalgacalka ku dhisan sida awgeed si fudud ayaa ugu guuleystaa xidhiidhka dadka waa qof lagu hirta laakiin in ku filan ma aaminsana jacaylka sida awgeed kama maqna in lala garab galo oo lala garab istaaga jacayl dheeraada waa qof ka mid ah dadka jecel ismiidaaminta iyo isku dayga wax kasta dhibtu doonaba ha yeeshee xarafka K ama K xarafkani waxaa astaan oo ah sirqasasho xad dhaaf ah gooni socodnimo kama madhna waa xaraf ay khajilaadu ku badan tahay waa qof leh weji iyo dabeecad dadka soo jiita waa xaraf xasaasiya caadifad badan wanaagiisu waa marka uu la macaamilayo dadka ay asxaabta yihiin waa xaraf ay ku jirto caqliyad ganacsi marka ay ku dhac iyo geesinimo tahayna waxa lagu yaqaanaa dhiiranaan iyo khibrad waa xaraf ay ka suurtooday inuu jilo iskana yeelyeelo xaalad kasta taas macnaheeduna waa in aanay ka marnayn khiyaamo waxa uu khiyaameeyaa jacaylka waxaanu awoodaa inuu ku qanciyo in inta uu doono uu sugo kuma dheeleelo cid ka agdhow waa xaraf karaamo badan oo noqon kara saaxiib iyo wehel wacan nasiib darro isagu waxaasoo wanaaga isuma yaqaano xarafka M waxa uu caan ku yahay dadaal iyo hawlkarnimo waxaanu mar walba doonaa jacayl iyo xiise noloshiisu aad iyo aad ayay isu bedbedeshaa mar ay kor u kacdo iyo mar ay hoos u dhacdaba inkastoo uu yahay qof aan kaftan iyo dheeldheel aqoon oo waaqici ah haddana waxaa lagu yaqaanaa waxa uu doonay inuu yeelo maaha inuu sameeyo waxaanu ku talagelin oo gaf iyo kama uga dhaca balse waa badheedh way adag tahay inuu ku khamaaro ama galo arrin khatar ku keeni kara naftiisa iyo dantiisa waxa uu inta suurtagal ah iska ilaaliyaa inuu guul daraysto ama khasaaro waxa lagu yaqaanaa xoogaad adayga waxaanu caan ku yahay qof ereyga iyo talada heli og waa qof inta badan ku dadaala inuu dadka ku dhiirigeliyo toosnaanta iyo akhlaaqda suuban daawadayaal intaasi waxaa ku eeg qaybtii labaad ee xarafka ugu horeeya magacaagu iyo waxa uu tilmaamayo waxaa soo turjumay Kamaal Axmed Cali waxaana idla socotinay anigoo taajira tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo